السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير شرفت له فيديو وحوق سابسين سبربر دقة فانيلا جافا سكريبت أو بيور كودنا قرنا كدبنا كود كاس أن دبوا قرنا the same functionality in Vue.js مركو حاركينا سيدا نلاشينا كود كا Vue أفضل framework كا سيدا Vue.js وكله. So to do ما تكان أيام وحنا بدلنا Vue.js. So مركو كود كا وحنا كسوق هذا ماشان MDN أيجا مركو هو سبربر دقة أيام. So مركو وبقول line of code أو JavaScript HTML كيسا waxaan arkaynaa in boqolkaas line of code markii Vue.js loo bedelo functionality ayada waxba iska bedelay inay almost lagu soo koobay 50%. It means control line. So marka sida uu shaqeynaa waxay tahay inaad delete ku dhigi kartid inaad meeshaas input fieldigaas ku qori kartid len C++, len Vue.js, something like that, kadibna aad delete garin kartid. Nothing else wax kala maaha kaliya waa si dynamic ina page wax ugu render gareyn karna si dynamic aan ku tirtir karno. So marka index.html noo abuur marka index.html abuurno kadibna calaamadda si automatic ay ugu dhameysano calaamadda calaamatul cajiibka qor marka calaamatul cajiibka aan qorno kadibna tab dheh kadib marka tab dhahdo kadib okay type marka qorno kadib waxaan sameeynaa to do title keena to do abaan ku soo qornayna kadibna h1 vanilla js to do application ayadana h1 keena ka dhiganayna kadib live server ka lagu kicinayaa waa kaasa saas oo lagu soo baxay. So marka waxaan rabnaa css ka hadda anaga css course kan ku saabsan inaan ka soo koobiyeysan meeshaan bas koobi aan dhahno kadib file style.css aan sameeyno kadibna paste aan meeshaan ku dhahno kadibna aan ku soo link gareeno aan dhahno style. Okay mujida saas oo ku soo baxay. So marka html wax badan ma anaga qornayno so marka dot container automatically define hore qorqonaysa kaas korgay kadibna formka iyo abuur id giisa ka dhig id gaasi kadib labelka wuxuu refer gareynaya input kan id giisa oo aan to do input ka dhigi doono type kiisa text ka dhig name kiisa text ka dhig id giisa waxa siisa to do input. Okay so markaas button geli button kaas kadib waxa ku saartaa submit add waa kaas amujida the same design or automatic load because css keeda isticmaalaya kadibna label kana magacaas ko aan gelinin. So marka listiga ma dhammaan meesha ku soo baxay ul id giisna waxa ka dhigtaa to do list ana id giis ka dhigana automatically hashkaas hada saas u raacayso kadibna asaas sameeyso automatically asigaas ku sii dhameystiraya. Marka javascript geena inaan qorano kadibna javascript ki code-kiisa aan from scratch anaga aan ka bilaabo. Okay javascript geena waxaan sameeysanaa waxaan variables ka aruurinayna saddexdaas id hada aan soo sameeysanay formki inputki iyo listki. So document.query selector kadibna id ki formki to do form iyo input saddexda iyo copy kadibna waxaan sameeysaa input form iyo class form kadibna waxaan sameeysanaa array meesha data lagu keenay laha ilaa data waxay u baahan tahay weel data lagu keenay. So marka const task wala const aysan fiicnaan waa soo laabanaya leedan gadaal ka dhigi doona id giis waxa ka dhigtaa to do 0 kadibna name kiisa waxa ka dhigtaa len some react some framework calaamad taajib saar. So marka id waxa ka dhigtaa waa kaasa const la digu bedel. Okay the second one waxay noqonaysaa in listigaas aan page si dynamic ku rugno sidaan oo kale li spam key it means wax alaala wixii aan text box ka saageeyay in image ka soo baxay mid walba ayadoo wali delete button la socod sidaan oo kale delete noogu qor. Okay inay saas u soo baxay sida hadda meeshaan oo kale example ka raacay sidaan oo kale simple plus wax walba ka gelin saas. Okay listigaas sidee dynamic aan arrayda aniga akhrinayna aan u gelin karnaa muhiimadeena oo ugu weyn intaas waa. So markaas waxaan sameeynaa page markuu soo load gareysmo inaan eventiga aan qorno event oo down content loaded la dhaco oo means markii page-ka lagu render gareeyo interface-kiisa la soo render gareeyo eventiga sida dhigaysan automatically la qoro. So eventiga aan dhigaysano on load aan qoro on load event. So wixii dhammaan walba page-ka waa kaasa automatically eventigaas waa la fire gareynaa. next waxaynu maadaama eventiga handle gareeno inaa marka si dynamic arraydaas aan ugu render gareeno pagekeena ama ul keena dhexdeeda ku qorno. So marka ayada ku horto
waxaan sameysanaynaa inaan li aan sameysano listis item ama li dheh kadib aan dhaho document.create element li. So marka aan li aan abuurto dhexdiisa waxaa galayo span iyo button. So marka spanka dhexdiisana waxaa galayo text. So marka copy iga samee span kadib create element span dheh intan waxaa iga sameysaa text note because spanka dhexdiisa qoraal ku qormayo oo qoraalkii to do tasks la sameynaya ah hadda marka text igu qor. So marka create text node waa marka sameynayno inaan saastaan. So marka span.append child inaan dhahno text node ku qabo kadibna li.append child aan dhahno inaan ku qabano aan dhex gelino spanki. So marka li oo spank ku dhex jiro ayaan waxaan gelinaynaa ulk. So ulk wuxuu inoo ahaa to do list element append child inaan dhahno kadibna aan ku dhex qabano li. So marka saas dhahno waa ka sameeyno soo baxay testiga xagga aan ku qornay. So marka booska testiga ay ku jirto waxaan u baahanahay arraydeena meeshaas lesson frameworks inay noo gasho. So marka maxaan sameeynaa arraydeena waxaan u baahanahay loop ku dhex socdo loop maadaama array imaado iyo loop inta badan kala ma haraan. So markaas waxaan leenahay for each key oo buildingka arrayga isticmaalina kadibna okay destruct aan isticmaali karnaa meesha task ka isticmaalina marka maadaama object uu yahay object laba xabo ka mid yahay id iyo name-ka labadaasna distract ku sameyno. So marka intaan noo koobiyey kadibna meeshaas kor noogu qaad adigoo isticmaalaya alt tab iyo arrow kore. Then list walbo marka waxaan u baahanahay li walbo marka abuurno meelaan ku keedino. So marka waxaan u baahanahay fragmentigii waxaa jira aydan create element si loo isticmaalo inaan dhahno create document fragment inaan isticmaalno. So fragment wuxuu noqonaa li-yada haddii hadda hal xaba ku jiro arrayda haddii 100 xabo 50 xabo ku jirto inaan ku aruurino kadibna ayadoo jumle aan ulka aan u dhigno append child aan dhahno. So fragment.append child li markaas hadduu append child fragment inaan dhaho fragment marka hold bas le waa meel aan data ku keedino. So ujeed hadda arrayda inoo soo baxay meesha taasi waxaan waxa ku bedelan namekii oo arrayda ka kooban tahay. So li id-giisa id aan sameynayna id-giisa marka waxaan siinaynaa li.id attribute-ka id-giisa ku xidhana. So marka hadda badin xataa arraydeena id 2 3 waxaasaan ka dhigno automatically some C++ some JavaScript automatically sidaas u soo baxday. So marka way noo shaqeysay waa ujeednaa. kadib waxaan u baahanahay spanka button hor yaala sida hadda aan ku aragnay id dib ugu noqdaa hal mar iska bedbedino. So 0 1 2 3 si xogo formal ka next waxay noo in aan abuurno buttonkii spanka button ag yaalo buttonkaas oo hadhow delete gareyn karo every task meeshaas ku jiro. So marka waxaan leenahay const btn ama button equal document.create element button automatically. So marka buttonkaas abuurno buttonka asigana qoraal ku dhex qornay delete ah oo ayana text ah. So marka ayadana waa inaan save gareynaa aan dhahnaa text note aan sameysana hadhow oo delete ah. Marka hadda attributes-ka waxaan ka dhigaynaa button si aysan type-kii submit waxaas uusan automatically aan ka yeelano. So waa kaasaan way noo soo baxay laakiin waxaan ku qoraynaa ka taga afkaan ka sheegay laakiin waa iska hilmaamay btn text equal document.create element create text note inaan dhaho kadibna delete aan ku qoro. So markaas saas dhaho kadibna aan dhaho btn.append child automatically markaas append child wuxuu noqonaa text note-ka automatically delete-kaas horoo ka soo qaadanaya fragmentic. So ujeeda kaasa waxay noo dhiman marka mar walba page la render gareynayo li-gan waa kaasa intaas render gareynayso delete-kan wuxuu u baahan yahay waxaan idin marka meel walba lagu render gareynaa copy dhahno oo meel walba paste ku dhahno delete-kaasna waxaa la rabaa marka kaliya lagu sii in delete oo dhaho hadda waa kana li-yadii dhan buttonkii waa kaasa buttonka waxaa u baahan marka event handle inaan u sameyno li-yadii id-yadooda mid walba la tirtiro. So marka waxaan ku qasbanahay kan inaan ka dhigno function intaan waa inaan ka dhignaa function oo hadhow aan call gareyno. Marka aan sameysano function kadibna functionkaas waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan render function oo kale. Okay render functionka sidoo kalena functionka waxaan kasii dhex sameysanaynaa another function kale oo li render gareynayo iyo function handle gareynayo buttonska iyo function handle gareynayo eventiga delete-ka. So marka intaan automatically noo wada koobiyey. So si aan meel walba hadhow aan ugu wacno markii data lagu shownayo waxaan u baahanay inaan functionkaas u wacno markii data lagu delete gareynayo waxaan u baahanay inaan functionkaas wacno marka iyo initial load-ka inaan functionkaas wacno.
so function kale hadda waxaan sameynaa function kale oo li bas la render gareynayo okay build element build to do element oo kale to do list oo kale iska dhac ayay waxay parameter qaadanaysaa list walba wuxuu u baahan yahay id-giisa iyo name-kiisa okay inta oo waxaan ugu koobiyeysaa oo li bas quseyso kat dheh kadib xagga noogu baasti karee waxaan conceptigeeda waa soo qornay laakiin waxa ugu baasti kareysan leh u baahannahay so markaas automatically functionkaas waxaan leenahay item equal functionkaas la waca waxaa loo siinaa array-dii labada xabaa ka soo qaaday kadibna fragmentiga li oo automatically noo soo abuurno functionkaas soo celina meeshaan return inaan dhahno li noo celiyo automatically xaggan ka isticmaalaynaa waxaan nagaysta inoo ah inaan haddana batankii aan function gooni ah asigana aan u sameyno oo maadaama event handlerkiisa iyo asiga shaqadiisa gooni tahay marka functionka bis id loo baahan yahay id-ga uu delete gareynaya waxa kaliya aan u baahannahay intaas waa so marka koodka oo ku saabsan batanka qaad inta idc kadib batankii waa la abuuray kadib return btn bis dheh marka meeshaan waxaan ku qoranaynaa event handler marka hadda meeshaan bas waa ku salayn karnaa because hadhow functionkan waa naga cuslaanaa user badanna ma akhrin karo oo macnaha user readable ma la fahmi karo automatically li.append childiga functionka uwac ku qabo haddaad variable ku abuuri kartaa function callka toos marka wixii dhan wax error kuma jiro hadda sidiisa weli koodka u shaqeynaya so marka hadda eventigii aan ku darno marka btn.add event listener clicktiisa inaan dhegeysana u baahana marka click ee dhacdo it means delay dhacday horta aan prowena marka console yana ku qornayna marka kadib aan dhahno console.log kadibna aan dhahno id-gii oo mujda mid walba ku dhuftay id-gii horta ka soo baxay mid kale delete gareynaa oo shaqeynaysa good second marka waxa waaye meeshaan ayadana handlekan function kala gooni inaan ka dhignaa ay ku qurux badan tahay kadib aan dhahno function event handle oo gooni inaan ka dhigno aan dhahno delayed handler oo kale inaan dhahno magaca waxaa rabta adiga u baxso saas oo kale inaan isticmaalno so delayed handlerka marka dhowr qaabooda jirto wax yaraan idin tusaa kale oo saddex qaab oo kala duwan inaan isticmaalno nested functions wax loo yaqaano inaan dhahno id-ga loo soo baasgaray kadibna return callback function dib u celi markii callbackaas la waco id-gii lasoo siiyey iyo sida hadda noqon isku mid waaye laakiin hadda aan proweyno inaan dhahno delete kadib automatically toos id-gii u siinaa markii id-ga la siiyo wuxuu soo return gareynaya function call oo dib u soo return gareynaya sida hore waa kan u shaqeynayaa isku mid waa mid walba lagu dhufto sidaas u shaqeynaya ayuu aan adeegsanin nested functions okay laakiin haddii aan toos sidan aan u isticmaalno automatically markii page la render gareeyo hoogaa functionka ka wacaa because event handler dhan ma sugayo markii hal mar refresh haddaan dhahno automatically id-yada idib meeshay kusoo baxayaan clictan hadda ma shaqeynayso because reference function call oo loo reference gareeyo jirto so marka waxay u dhigantaa tii hore arrow functionka anigoo isticmaalnay arrow function kadibna return functionka aan sidaan iyo sidii hore hadaayo oo nested functionska way isku dhigantaa labada nooc mid ka artid waa isticmaali kartaa the same thing event handlerka uu sugayaa markaas saas soo wacaa ama waxaa samayn kartaa dot bind inaad ku qabatid kadibna aad dhahdid laba parameter oo mid koowaad argument null sidaasna ku shaqeynaysaa saddexdaas nooc mid ka artid isticmaal laakiin aniga hadda waxaan doorbidayaa maadaama aan isbarbar dhigayno framework view iyo kan waxaan doorbidayaa nested functionskan ayaga igron meel walba hadii aan daawacanahay saana kan u wacan karaa maaha si general inoo xaliyo okay so marka conceptigii oo delayedka inaan ku render gareyn loo baahantaa bis waxaa u baahannahay id-ga la delete gareynayo in aan listiga ka saarno so marka inaan dhahno taskii waxaa dib u shaqay array cusub dot filter arraygaas oo id-gan oo id-yadeeda aysan lamid ahayn id-gan because kadib waxaan leenahay taskii dot id not equal to id-da hadda la taagan yahay so marka wuxuu soo rinayaa functionka arraydii hore oo laga reebay id-ga hadda la delete gareynayo then maxaan u baahannahay next waxaan u baahannahay in dib loogu render gareeyo meesha in dib render functionka u wacan so mujida hadda waxay naga caawisay in waxaan function ahaada automatically call gareyn hadday function ahaan lahayn toos koodka hadday waa soo koobiyan yihiin intaa pasta bis ku dhihi lahayn so marka automatically haddii okay waaye sidan way shaqeynaysaa laakiin cilad yaraa jirto aan aragna marka maxay tahay delayed hadda marka la dhaho sorry main conventionska meeshaan oo taskiskii isma laha magaca inta waxaa ka dhigta taska caadi ka dhigta taskiyan ka dhig okay hadda caadi uu shaqeynaya mujida hadda mid walba aad delete gareeyo dataas maxaa waa wixii markii tirtirmayaan meesha maxaa keenaya for example tusaalaha inta hadda office ka dhaho may hal mar refresh day laakiin waxaa sameynayna laba xabo oo kale aan ka dhigno waxyaraan ku tusaya labada xabo markii markaa kan delete dhahdid
xabadkan wuxuu sameynayaa labadan sidii u taaleysaa kii koowaad soo celinaa sababta maxaa waaye sababta waxaa waaye haddaan si kale aan kugu sharxo wuxuu sameynayaa arrayda waa tirtirnay laakiin pageka UL-ka ma tirtirin hal mar aan dhaho array inaan tirtiraa caddeeyo console.log taskiisa aan dhaho markaan taskiisa aan dhaho laba xab mujida arrayda hadda hal xab bisa ku jiro mar kale delete haddaan dhaho arrayda waxaa ku jiro hal xabo soo marka labadii hore ugu jirtay double baa delete dhaho arrayda inta waa labadii hore aan ugu jirtay markii la delete gareeyo xabadkii kusoo hartay oo kusoo celinaa haddana markii la delete gareeyo it means markii wixii arrayda cusub kuwii hore ugu yaaliyo ku daba qabanaa haddii hadalka si aan u dhigo soo marka waxaan u baahannahay in aan pageka UL-ka aan tirtirno inta aan ku render gareynin inaan tirtirno soo marka sidee u tirtireynaa easy wax weyn maaha waa 3 line of code instead oo UL-ka meeshaas mujida append child fragment marka lagu qabanayo waa in meeshaas laga sii tirtiraa inta oo la daroogayo inaan dhaho while kadibna aan dhaho to do list element dot last child hadduu wax jiro oo laga gaarayo kadibna aan dhaho to do list element dot remove child last child inaa automatically intaas bis aan isticmaalo mar walba hadduu last child soo sheeg hadduu last child oosan null ahayn last child tirtir tan waxay sameynaysaa marka in listiga oo idin la tirtiro haddana dib loogu render gareeyo this is one of the biggest problem ay frameworks ka xaliyaan okay next waxaynu haddana mar kale inaan add functionality ku darno oo formkaas aan on submitkiisa aan handle gareyno kadib markaa meeshaas wax ku darno oo automatically ay kusii darsamaan listigeena si dynamic inaan add ugu sii samayn karno okay so marka meeshaan waxaan sameynaynaa waxaan soo dhex gelisaa on event loadka documentka markuu render gareysmo kadibna waxaan sameynaa in aan reference ka qaadano to do list element my formki form add event listener on submit markii submit la siiyo inaan dhageysano eventigaas automatically markii textbookska ama enter la dhaho batanka aad lagu dhigto kadib markaan dhageysano okay aan horta inay shaqeynaysa in kale ama iska rasiidaan soconaa dot event prevent default ina horta oo page reload noo kato oo aan sida kale noo proweynayna console.log kadibna aan dhahno on submit event on submit so marka automatically wada pagekii markii submit la waa kaasa wax reload aan isku madirayo okay so marka waxaan rabnaa inaan handle gareyno textbookskaas wixii lagu qoraa akhrino kadibna aan arrayda ku shubno kadibna aan render gareyno textbookskana aan nadiifino shaqadeena keliya intaas waay okay kadib waxaan leenahay textbookskii text name textbookski marka wuxuu inoo ahaa list to do input I think to do input dot value isa waxaa noogu shubtaa text namekaas so marka nameka aan code ka qaadanay kadibna laga clear garee si meesha clear u noqoto oo wax kale lagu qori karo so task namekaas markaan qaadano object cusub noo samee maadaama arraydeena list of objects ay hayso arraydan waxaan bixinaa new task id-gi waxaan ka dhiganaa lengthiga array ugu dambeeya mar walba to do list kadibna aan dhahno tasks dot lengthiga to do 1 2 3 marka mar walba array sequential ay u socoto namekana waxaan ka dhiganaa wixii markaas task namekaas oo inoo ahaa saasay noogu samaystaa objectigeena marka waxay u baahan tahay arrayden inaan gelin arrayden laba qaab u gelin karnaa qaabkooda waxaa waaye inaan dhahno tasks equal new array ku shub oo arraydan tii hore kasoo koobiyo wixii hore ku jiray iyo objectiga this is one way the second way waxaa waaye inaad dhahdo tasks dot push primitive-ka aad taqaane inaad dhahid kadibna objectigaas aad u baasgelaysid last item oo automatically oo ku daro marka lagu daro arraydi waxaan u baahanaa pagekii inaan la render gareeyo sooma something in UI laga tirtiro UI cusub arrayda cusub lagu qoro okay aan aragna hadda soo jeedid okay Abdullahi Abbas Abdulqadir Hussein Dile Hisi good okay delete ku shaqeyna waa kaasa soo marka haddii saasaan dhahno meeshaan waa ku xiri kartaa in empty waxaan la gelin kar laakiin waa sidaas u soconaysaa so haddii aan li fiirno automatically mid ah problemka haddaan idin sheegayay markii hadda aad laho UI-ga in la tirtiro soo jeed mid walba soo jeed maxal UI maxal li-ga dhan in dib loo tirtiriyo haddana dib loo soo gelinaya maxal aadkeeda maxal delete mid walba so one of the biggest problem xaliyaan waaye
virtual DOM-ka oo lagu amaano. So marka intaan koobiyan ka qaadanayna function aan ka dhiganaynaa. So wax walba inaan function model gareeno waaye kad dheh kadib meeshaas pass ugu dheh init ama initialization function kaas inuu yahay meeshii marka automatically laga wacay sidoo kale maxaa function u sameynaynaa maxaa ahaa submit handlerka ayadana function ka dhiganaa si wax walba wixii meeshii koodka function walba koodka uu qabanaya ugu magac dareynaa si qof walba imaado u fahmi karo. marka koodka waxaa noo soo qaadaa oo submit ku saabsanaa eventigiisa kad inoo soo dheh okay submit maxaa qor horta maxay tahay sub soo bilaay oo capitalization ka bilaabanaysa okay submit handler kadibna meeshaan intaas kad dheh pass ku dheh eventigi arraydaas iga tirtir functionkii saas u shaqeynaa automatically wax kan renderkan qaad waxaad mujida koodkeena clean uu noqday. so eventigan tirtir initializationkaas u wax marka automatically maxay nagu qaadatay in halahan kood qorno oo sidii u shaqeynaysaa. so marka halahan adii aadkan waa kaasa halahan line oo code ah waxay nagu qaadatay automatically 100 line oo code ah 100 line kan oo code haddii framework loo bedelo maxay line u qaadanaysaa waxaan rajeynayaa inay qaadato 50% wax ka yar. kadib markaan qornay 100 line oo code oo vanilla javascript ah oo 101 line iyo 100 line oo isla halkii waxaan rabnaa inaan u bedelno Vue.js framework ah because asiga markii ku kala loo eego saddexda waaweyn asiga ugu dambeeyay woona kaga fududahay xagga qofka markuu la qabsanayo wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaan template engine Angular-ka sidoo kale way isticmaashaa. so marka waa framework the same functionality rabnaa inaan ku sameyno Vue.js. so marka waxaan sameynaynaa index2.html aan leenahay file cusub oo html aan sameysanaynaa si aan koodkan ugu qorno. marka wax alaal wixii html waa koobiyeysanayna we don't need inaan dib u qorno oo si aan waqtiga u save gareysana darteeda intaas noo qaad copy noo dheh meeshaas pass dheh maca css kan linkii kor ku jira. so marka javascript-igi bisan qornaynaa. so marka si aan u qorno waxaan u baahannahay cdn aan u baahannahay tan waa iska default-igi type javascript-igi oo meeshaas java ayaa ka tagay script-igi v-da horteeda. marka xagana view to do title-ka noogu sii dhig. so marka cdn aan u baahannahay waxaan booqanaynaa website-ka Vue.js oo lagu magacaabo Vue.js.org Vue.js.org kadib enter dheh marka ku soo baxda kadib waxaa ku dhuftaa getting started kadibna linkigan cdn oo javascript-ga ah koobiyeyso. marka koobiyeyso kadib javascript-ga korkiisa paste ku dheh. marka javascript-ga korkiisa paste ku dhahdid hadda marka koodkeena toos u qor. hadda waxaan ku bilaabaynaa inaan dhahno meesha aan refer gareynayna so containerkaas aan refer gareynayna meeshaas id u qor oo new waxay usoo bixi lahayd because meeshaas eeda daya in sheega ka qaad hadda okay waa marka new view qor bracket fur object ahaan qor kadib elementiga aan rule gareynayno waa containerkaas id-ga aan u bixin root. so marka meeshaas wixii meeshaas ku jiro marka data waxa loogu talagalay in lagu qoro wax alaal wixii data isticmaalaysid ama variableska ama array. so marka ana array data noogu kaysanayd marka array-dan dib noogu soo koobiyay hal xabo kamid ah midka koowaad lensan frameworks code soo dheh. so automatically anagoo wax kala kooda aan rendering aan qorno qorin kale kan aan waxaan ku xireynaa automatically template-ka kore ku yaala html-ka. so waa qaadeynaa kadibna li dhexdiisa meeshaan li ayaa ku qoreynaa li kadibna dhexdiisa span ku jiro kadibna meeshaas li-da loop aan ku xireynaa fiir simple say u tahay waxa waaye v4 kadibna waxaa leedahay taski in taskis waxay u dhigantaa for in loop oo javascript pure caadiga ah qoraysid. so marka javascript html-kaaga aad dhex gelinaysaa. so hadda ma jeedaa oo yara heestan jeclaa waayo soo bixi laadahay fiiri wuxuu leeyahay property testisma oo sorry array aan refer gareynayo taski laga rabo aniga test aan dhahay. so ujeedid so marka meeshaas waxaa ka dhigtaa taski ka dhig hadda automatically object-ga koowaad ma jira list ahaan uu soo baxay. so meeshan javascript dot name haddaan dhaho automatically name-ka bas ay soo baxay good. so marka waxaan ii sameynaynaa marka button-kane ku qabo sida hadda aan sameyn oo kale delete ku qor
automatically eventigiisa fiir simple arga waxaa hadana qoraysaa add click agtaas waxay u dhigan tahay v on ay u dhigan tahay muhiimadu waxay tahay maaha VJS ma sharxayna laakiin waxaan rabnaa waa boobsiinayna si aan u aragno waxa JavaScript iyo farqiga u dhaxayso automatically functionka nooca functionkaas hadda dib u abuurnayna ID-gan u pass karay callback function ahaan uma siinayna function call ahaan asiga hadhow dib uga caayo soo marka meeshaas data loogu talagalay wax alaal wixii methods ahna object ya abuurnaysa dhexdiisa wax alaal methods ku qoran objectkaas methods alaha on delete ID automatically soo qaadanaya markuu ID-ga soo qaato simple code-kii remove-kii aan ku qoraynay JavaScript caadigan qorayna marka logic-keena disto tasks soo marka hadii aad tasks inaad refer gareyso waa inaad disk hormaraysaa maadaama oo objectiga oo data ay ku dhex jirtaa wada isticmaalaysid waxaas kale oo VJS toos ugu hadlayna laakiin muhiimadu waxay tahay simple inta yar code-ka qoraysid mujida on submit kadibna markaas functionkaas kale dib noogu qor maxay marka submit-ki variable oo waxaan sameysanaynaa oo input-ka datada controlayo oo wax loo yaqaan v model lagu leeyahay task name xaq ku qoran soo marka on submit marka soo submit-ka event-iga soo qaadana kadibna event-iga waxaan rabnaa inaan ka prevent gareeno inuu page-ka reload u diro soo event prevent default aan leeyahay sidaas darteeda taskigaas noo qaad kadib input textiga tag kadibna v model meeshaan v4 aragtay v model ujeedaa v on ama at calaamada at loo soo gaabiya ujeedaa waxa soo idil waa directives ay u taqaanaa VJS ha ku reerin course VJS ka ku baran doontaa duu ilaahay karaal noqdo so automatically marka uma baahna eventigiisa dhageystid v modelkaas wuxuu qabanayaa laba midka oo qabanayo dadaalan kaaga sharxi doona marka at submit formka markii submit la dhaho automatically functionka wa asiga parameterkiisa soo baas karina event markii la soo qabto waxa uu celinaya soo marka code-kan dib iga dirtir si wax u gelinayna waxaan leenahay dot push kadibna object c id sida haday aan sameynayno hal mar oo inline aan ka dhigno leeyahay to do id-gan waxa ka dhigtaa task.length comma comma guud soo gibi name kadibna task name automatically that's all okay kadib waxaa sameysaa task name-ka noo kala garay this dot task name equal empty as soon as empty ka dhigo text field kor jiro hore wuxuu ka dhigayaa asigana value-giisa empty oo ka dhigaa two way pane isku tahay waa kaasa soo marka hadda wax walba sida u shaqeynaya vb.net vjs c#, c++, wax walba aan entry geliyo automatically hore ka shaqeynaysaa delete way shaqeynaysaa soo hal mar aan fiirino elementiska html-ka fur meeshaan divki kadibna ul-ka fur mar walba aan wax geliyo automatically hal mar listiga aan ku fur mujida mar walba aad ku dhaho ul-ka lama tirtirayo waa lagu daba qabanayaa soo mar walba kii hore waa kana fiir vanilla javascript maxaa sameynayni update-ku wuxuu ka dhacay macal ul-ka dhamaantood virtual aadhe domku waa la tirtiraa dib loo soo rendigareena laakiin meeshaan datada soo korona bis lagu sii tiraa cid formka dib u tirtirayso ma jirto iyo cid dib oo u sii dhisayso waa muhiimada ee leedahay virtual domka waa farqiga u dhaxeeyo pure javascript hadaa isticmaashid iyo framework ama react ha noqoto ama vue ha noqoto ama ember ha noqoto ama whatever xyz hatta framework adiga aad samaystay waa maasantahay